به نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وبارك وعظم ومجد وشرف وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة وعلينا معهم برحمته تعالى وببركتهم وبعده. يقول الله جل ذكره: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق رب العرش العظيم. إلهي بما هذا دمان إسكاله inuu na siiyey nicmooyin aanan tirakoobi karaynin oo qaayo aan qaayadooda garan karin baa ilaahay ku mahadsan yahay. uga amaalaynaa ciddii maqaamkaas kelimadaas ku habanaan laheyd ani hadda ma ihi, laakiin haddii la yiri aqoonku wixii oon iska dheh waxweyn inaan wax idhaahdo waa ku khasbanahay. rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam qiimaha iyo qadarka lagu helayo ilaahay agtiisa qadarkiiyo qiimaha uu ka leeyahay amba jeclaanta la jeclaado waxaa lagu helayo waxaa si dhaba u garan kara ciddii si dhaba u jecel. annagoo marka dhalanteed ay nagu tahay iyo sheegsheeg ay nagu tahay inaynu annabi muxamed sala allahu calayhi wasalam sheegitaankiisa iska barakaysanayno oonan ka maarmi karin ma ogiye wuu ka sharaf badan yahay carabkanaga wax lagu sheego nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. ilaahay qiimaha caalamka dhanba iska lahaayoo maaliku kulli shayin ahaa baa nebiga qadarkiisa iyo qiimaha uu leeyahay ilaah wax ka muujinaya. cid marka gaari karta qadarkiisa iyo qiimihiisa tilmaami karta lama helayo, ilaahay ka soo hartay. marka koowaad bal fiiriyo in markii a'imadii islaamku nin walba hiba nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka garanayay markuu ku tilmaamay oo intuu gaari kara nin walba tilmaamay. haddana wuu cudur daarto nin walba hiba wuxuu yidhi waxba kama gaarinoo wixii aan sheegay oo nebiga ka sheegay qadarkiisa wax cunaan ma maaha. imaamkii qaaliga ahayo sheekh yuusuf ibnu ismaaciil annabhaani markuu rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalama kun beyd ku ammaanay, qasiido kun beyd ka kooban. daybatulqara kitaabka la yidhaahdo markuu nebiga ku ammaanay buu meesha gabagabadii wuxuu yidhi waxaas nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam aan ku soo tilmaamay oo qasiidadaahoo 1000 beytin kun beyd haddana ah oo weliba aan ka buuxiyey abkaaru quril macaani wada cusub oo sida gabdhac yaryaro cusub oo bakaarooyina camal oo kale ah anoo ka soo buuxiyey ay haystana nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qadarkiisii aysan waxba ka ahayn oo waxaan la mid ahay yiri markaa nebi moxamed intaa ku soo tilmaamay tilmaantaydu la too tahay qur-aanyo yar hadda qur-aanyo ogow oo maalin aan joogina hameen joogta oo haddana indha habeeno leh. qur-aanyo oo siday u yartahay la ogyahay oo aan maalin joogina hameen joogta haddana mid indhaheedu marka horeba fiicnaayeen aan ahayne cashwa mid indha habeeno la ah ee tidhaahda cashuraxmaanaan tilmaamayaa. intay ka garan karto qur-aanyadaas hameenka joogta ee indha habeenaha leh carshuraxmaan intay ka garan karto unbaa nebi maxamed ka garan kara uu yidhi sala allahu calayhi wasalam. waa cajsi dhammaystirane ogow wax ay ka garan karto qur-aanyadaasi cirkoo ka sokeeyaysanba u jeedinba mar haddii iyo walba waa yareed waa indha yareed haddana waa hameenay joogtaa indha habeenay leedahay waxba uma aragtaba. saasoo kale sidaynan carshiga carshuraxmaan waxba uga arki karayn oynan qadarkiisa u ixaadayn karaynan baa rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam inaguna sidaasoo kale unbaan alla la mid ahay yidhi. intay qur-aanyadaasi ka tilmaami karta carshuraxmaana nebi maxamed ka tilmaami karaa. sidaa marka imaamku leeyahay runtiis weeye oo dhabtuu cabiray ee tawaaduc keliya ma ahan. waxaa ilaahay nebi maxamed ku tilmaamayaa
inaan cid isaga ka soo hartay oo qadarkiisa gaari soo ixaadayn karta inaynan jirin, waxa u cunanma iyo wuxuu astaahilay iyo qiimihiisa allah mooye cid kaleeto oo tira koobi karta inaynan jirin. ilaahay baba na barayaba. dad oon waxba fahminoo doqomaha waxay dhihi doonaan quluwi ay sameeyeenoo dadkaasi waxbaynanba fahmina, bal qur-aanka dib ugu noqo oo ilaahay wuxuu leeyahay waanzala allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima. fadliga nebi muxamed oo aan ku siinay inta kaleo dhan xagga u kaadiya, fadliga aan ku siinay waa weyn yahay baa ilaahay leeyahay. aayad kalena ilaah wuxuu ku leeyahay ilaa raxmatan min rabbik ina fadlahu kaana calayka kabiira. aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay wa inaka lacalaa khuluqin cadiim. ilaahay nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama dabeecadiisu cadiim buu ku tilmaamay. fadliga ilaahay siiyey oo alla siiyey cadiim baa alla ku tilmaamay. raxmadda ilaahay uu siiyey kabiir baa alla ku tilmaamay. ma dhihin rabbi markuu tilmaamayay waxa aan ku siiyey cirkay la egyihiin, ma dhihin carshigay la egyihiin, ma dhihin jannadiiyo naartay la egyihiin. wuxuu yidhi waa cadiim. ilaahay shayga uu cadiim ku tilmaamayna waxaa garan kara cadamadaasi intay la eg tahay ciddii ilaahay mujaanis u ah haddayba jirtaba. ma la helaya ilaahay wax u mujaanisa ogow. hadduunan ilaahay mujaanis lahayn keligiisaa yaqaan nabiga qadarkiisa, cid kaloo taqaana la heli maayo. waxaynu ognahay inagu naqaanaa mid inaga naga midii wixii weynaan uu ku tilmaamo inta kale la suuraysan karta. wixii quruxuu ku tilmaamo waa la garan karnaa. wuxuu caraf ku tilmaamo, wuxuu macaan ku tilmaamo, se weynu la naqaan. wuxuu tilmaamayaa la naqaan, macaankan la naqaan, weynaantan la naqaan, quruxda carafta. qof walba qofka mujaaniskiisa shayga uu cadamo ku sheego inta cadamadaasi la egta waa caraf weyn, waa qurux weyn, waa macaan weyn. wixii qofkaani tilmaamay ciddii mujaanisiy way la garan kartaa. dee ilaahay mujaanis ma leh. rabbi wax u mujaanisa lama arko. hadduunan ilaahay mujaanis lahayn cadamadaasi intay la eg tahay ilaahay keliyaha yaqaan. nebiga fadliga alla siiyey, raxmadda alla uu siiyey, dabeecadda alla uu siiyey ilaahay keliyaha yaqaane. laa jinnun walaa insun walaa malakun walaa nebiyun cid ilaah ka soo hartay oo garanaysa ma jirto. inay sidaa tahay mar kale aan markhaati kale u raadsanno. ilaahay jannadii buu noo tilmaamay waxay tahay. way carfoon tahay, way waasic, waa macaan tahay. wax walbo wasfiyahoo aan ku garan karna ilaahay noogu sheegay. tilmaan walba oo aan fahmi karna markuu ilaahay noo sheegay oo uu yidhi waa weyn tahay. carduha samaawaatu walardu ama carduhaa aayaddii kale ka cardi samaai walard. carafteeda wax walba nebigu iyo ilaahay ka tilmaameen. wax walboo dhan markii lalakaga tilmaamay ilaahay muxuu qur-aanka ku sheegay mu'miniintu inay leeyihiin lahum makfiratun wa ajrun cadiim. ilaahay mu'miniinta muxuu siiyey acadallaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima. ajri cadiimaha ilaahay mu'miniinta siinayaa maalinta qiyaamo u diyaariyey. dee waana ilaahay jannadiisa weeye ogow. jannadaas ilaahay cadiim baa ilaahay ku tilmaamay. inta tilmaan annagu aan garan karno oo dhan intde jannadu cirya dhul waa ka weyntahay. carduha samaawaatu walardu markana laleeyahay wax annagu aan aragno oo aan fahmayna cirya dhul noola weyihiin. cirya dhul way ka weyntahay. waa taqriiban lilafahmi waxa cirya dhul loogu miaaliyo cirya dhul ay la eg tahay loo leeyahay waa ka weyntahay. wax ka weynaanan arkin. jannadii markuu ilaahay si walba noogu tilmaamay inay cadiimtaana uu tilmaamay. ilaahay haddana wuxuu nagu cajisi gelinayaa jannadaasi cid soo aragtay ma ahane cid kaleeto inaynan garan karayninba tilmaan kastoo laga siiyo. maadaama ilaahay cadiim uu ku tilmaamay waana laka cajisi geliyo xadiidkii xadiidulqudsiga ahay oo bukhaari iyo muslim iyo keyrkood wariyeen. ilaahay wuxuu ku leeyahay acdadtu licibaadiya asaalixiina maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar dukhran bal hamaa udlictum calayhi. fiiriyo ilaahay markuu jannadii si walba noogu tilmaamo, rasuulku si walba noogu tilmaamay cadiim cadamadeedu intay la egtahana la cajzi gelinayaho ilaahay wuxuu yidhi
waxaan addoommahayga fiican u diyaariyey janno oo ma la caynu ra'at wax aan baddadii arkinba. meeshaasoo kale xadiidka waxaa la yidhaahdaa waa mufiide macnaha meesha mudaafa ka go-an maa laa caynu basharin ra'at waay qaybta dambaa basharku ku jira halkaana waa u qadaranta waxaan dad ishoodu aynan arkin walaa udunu samicat udunu basharin samicat dad bani aadam dhegtooduna aynan maqal walaa khatara calaa qalbi basharin aan dad qalbigooduna suuraysan karayn. waa tacjiiskii ugu dambeeye fiiri jannadu si kastood weynaanteeda suuraysata ka weyno intaas suuraysan karto waaba kasii weyntaa ilaahay qur-aan iyo xadiisulqudsigaas noogu leeyay saxiixa. meeshaas marka waxaan ka rabaa nuxurkiiyo ujeedada aan rabaa ay tahay shayga ilaahay cadiim uu ku tilmaamo inta cadamadu la egtahay isaga unbaa yaqaana cid kaloo la taqaan lama arko. jannadii markuu ilaahay cadiim ku sheegay haddana wuxuu yidhi intaad suuraysan kartaan oo dhan way kasii fiican tahay, waa ka macaan tahay, waa ka qurxoon tahay, waa ka carfoon tahay, waa ka waasicsan tahay. marka shayga anag ilaahay cadiim uu ku tilmaamo cid ilaahay aan ahaynoo cadamadaasi intay la eg tahay inaynan la helayninba marka xadiidkan iyo aayadihii horeeto markaad isku soo ururiso kuu soo baxaysa. cid kastoo nebi moxamed wakhtigiisao dhan qofkii ammaantiisa daldalayo wax kale aan qabanine wakhtigiisao dhan ku dhammeeya nebi moxamed ammaantiisa ma gaari karayo mustawihii qadarkii uu cunanmay nebiga ma gaari karo. saa ilaahay wuxuu siiyeeyaa intaan garan karna ka weyne.